walaalayaal markaa ah dhibaatada ay leedahay darteed. ilaahay hadduu idmo subxaanahu wa tacaala waxaan wax ka sheegaynaa ahwaalaha iyo dhibaatooyinka qiyaamaha uu leeyahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaamaha wuxuu ku tilmaamay ama uu uga digay dadka, markaasuu yidhi yaa ayuha annaasu ittaquu rabbakum, wardadow ilaahiina ka cabsada. waayo maalinta qiyaame ahwaasheeda iyo dhibaatada jirta waxa looga fagtoo lagu badbaado ayaa cabsida ilaahay ah subxaanahu wa tacaala. idan dadow ilaahiina ka cabsada. adduunku saan ma noqon doono, wax badana isbeddelaayo. inna zalzalata asaacati shay-un cadiim. saacadda qiyaame gadgadoonkeeda iyo ruxashada ay wadato waa shay cadiim ah buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. yowma tarawnahaa, waa maalin buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala aad arkayso tadhalu kullu murdicatin camaa ardacat, inay hilmaamayso naag walba oo wax nuujinaysay wixii ay nuujinaysay buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. howlkaa iyo dhibaatada jira darteed naag walba oo ilma jilbaha u saarnaa oo nuujinaysay way hilmaamaysaa buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. watadacu kullu daati xamlin xamlahaa, naag walboo uurka wax ku waday waa dhigaysaa buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. howlka iyo dhibaatada iyo mashaqada jira darteed bannaankay u soo bixinaysaa. watara annaasa sukaaraa, dadkii waxaad arkaysaa inay sarqaan yihiin oo dad wareersan oo kale ay yihiin. wamaa hum bisukaaraa, ma wareersana, laakiin wixii sidaa ka dhigay wuxuu yahay walaakina cadaaba allaahi shadiid. cadaabka ilaahay oo maalintaa jira ayaa mid shadiid ah oo adag markaa ah. qiyaamahaas ayaa qof kastoo annaga naga mida sugaaya. ilaah subxaanahu wa tacaala hortiisaa la tegi doonaa. qof walbaa wixii uu sameeyaa laga xisaabi doonaa. qof walbaa wuxuu abaalmar u helu ilaah siin doonaa. dadkaa laba u kala qaybsami doona, fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir. intaanan u gudagelin howlkaa qiyaamaha iyo mashaqada iyo dhibaatadaa jirtaa, wax yar waxaan ka hormarinaynaa geerida iyo arrimaha ku tacalluqa iyo sida ilaah subxaanahu wa tacaala uu ugu talagalay ruux walba inuu u xayaato baxo. ilaahay kitaabkiisa munasalka waxa uu ku yidhi kullu nafsin daa'iqatu lmowt, naf kastaa geeri ayay dhadhaminaysaa buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. naf walboo xayaato la geliyey ayuu ilaahay xayaatada ka bixinaa subxaanahu wa tacaala. wa fii yowm min alayaam kullu nafsin daa'iqatu lmowt wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama. waxa hadda aad qabanaysaan oo camalo ah ajiryaalkiisana maalinta qiyaamahaan idiin oofinaynaa buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. kullu nafsin daa'iqatu lmowt wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama. faman zuxzixa can innaar waudkhila aljannata faqad faaz. qof walba oo cadaabka laga durjiyo oo naarta laga dhaqaajiyo oo jannada la geliyo ayaa liibaanay buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. liibaanta xaqiiqdaa waxaa gaaray qofkii inta ilaahay cadaab ka durjiyo janno uu markaa geliyo. faqad faaz. wama alxayaatu addunyaa ilaa mataacu lguruur, noloshaan adduunkii aad ku sugan tihiinna ma ahan buu dhahay ilaah ilaa raaxo yar oo kada ah oo dadka sirtaa maahana wax kale. haddaba qof walbaa waa dhimana, wuxuu ka tegaa nolosha adduunka, wuxuu aadaa nolosha aakhiro. qof walbaa ilaahay xayaatada ayuu ka bixinaa marka ajashiisa la gaaro. oo ilaahay wuxuu yidhi ummad kastaa ajal ayay leedahay. faidaa jaa'a ajalahum laa yasta'khiruuna saacatan walaa yastaqdimuun. ajasheeda haddii la gaaro saacadna laga dibdhigi maayo, saacadna loo hormarin maayo buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. haddaba walaalayaal waxaana sugaaya xayaato baxa, waxaa nagu sugaaya sakaraad aad iyo aad u dhibaato badan. waxaa aad iyo aad u fiican inaan u diyaargaroobno si ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noogu naxariisto marka la gaaro ajasheena iyo dhimashadeena. qof walbaa wax buu ilaahay ku sababaa subxaanahu wa tacaala.
qofaa wuxuu ku dhimanaa shil baabuur, qofaa wuxuu ku dhimanaa macrika iyo dagaal, qofaa wuxuu ku dhimanaa asagoo gurigiisa jooga, qofaa qof kale lagu sababaa. ilaahay ajasha sabab ayuu u yeelaa subxaanahu wa tacaala. wamaa kaana linafsin an tamuuta ilaa biidni illaah kitaaban mu'ajala. naf ma dhimata buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala, ilaa hadday dhimanaysana waa idin alla subxaanahu wa tacaala. kitaab ayay ku dhimanaysaa mu'ajal ah oo loo madaleeyey subxaanahu wa tacaala. haddaba xayaato baxaa dhibaato aad iyo aad u xanuun badan ayuu leeyahay. sakaraad dhibaato badan ayuu wataa oo ilaahay uu yidhi wajaa'at sakratu lmowti bilxaq. waxaa yimid sakaraadkii meydka oo xaq ah buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. daalika maa kunta minhu taxiid. waxaad ka lexleexan jirtay oo aad ka fakan jirtay ayaa kan ah ayaa loo dhahayaa qofkii. haddaba marka sakaraadkaa dhibaatada badan la gaaro, ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkiisa haddaan aaminno, ilaahay waa noo naxariisan doonaa cinda ixtidaarinaa, marka ay nagu soo xaadirta geerida. laakiin haddaan macaasi ilaah ku socono oo ilaahay aan caasino subxaanahu wa tacaala, aan ka tagno daacadiisa iyo diinkiisa, ilaahay nooma naxariisanaya subxaanahu wa tacaala marka sakaraadkeenna iyo xayaato baxeenna markaa la gaaro. rasuulka waa sakaraaday salawaatullaahi wasalaamun calayh. caaisha waxay tidhi markaan arkay sakaraadka nebiga, wallaahi sakaraad ka dambeeyaa kama naxin markaan arkay. nebiga salawaatullaahi wasalaamun calayh, allaahuma acinnii calaa sakaraati almowt wa ghamaraati almowt ayuu dhahayay bay tidhi caaisha. ilaahayow iiga gargaaroo iiga kaalmay sakaraadka xanuunkiisa iyo dhibaatada markaa uu wato. inna lilmowti la sakaraat ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam. meydka wuxuu wataa sakaraad aad iyo aad u xanuun badan oo dhibaato badan. sakaraadka ayaa qofka soo xaadiraaya oo u soo gelaaya. ilaahay ayaa ka hadlay subxaanahu wa tacaala, kallaa idaa balagat altaraaqiya waqiila man raaq buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. wardadoo waxaad ka warantaan marka nafsadda ay kalxamaha soo gaarto oo qofka xayaato bax uu gaaro oo yaqiinsada inuu adduunka ka tegaayo, kallaa idaa balagat altaraaqiya waqiila man raaqa. dadkuna ay dhahayaan yaa ku tufaaya maanta, yay tuftiisa anfici doontaa qofkan. waqiila man raaq wadanna annahu alfiraaq. qofkaa sakaraadka ahna yaqiinsaday inuu faaruqayo buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala, inuu adduunkaba ka socdo ayuu markaa yaqiinsaday, inuu meeshaa ka tegaayo ayuu yaqiinsaday. maanta wixii ka dambeeya inuusan ehelkiisa iyo xaaskiisa iyo ilmihiisa uusan arki doonin, uu ka dhex baxaayo ayuu yaqiinsaday. maanta wixii ka dambeeya inuusan wax la cuni karin, wax la cabi karin, oo la sheekaysan karin ayuu yaqiinsaday. sidaa darteed ayuu ilaah subxaanahu wa tacaala yidhi, dadku waxay leeyihiin man raaq wadanna annahu alfiraaq. qofkaana wuxuu yaqiinsaday faaruqitaan uu adduunkii faaruqaayo. faaruqitaan gogoshiisii iyo gurigiisii iyo ahalkiisii uu faaruqaayo ayuu yaqiinsaday buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. haddaba sakaraadkaa dhibaatada badan ayaa aad iyo aad u wanaagsan inaan xasuusnaano mar walba oo qalbigeenna uu ku jiro. nebigu wuxuu yidhi salawaatullaahi wasalaamuhu calayh, akiruu dikra haadimu ladaat. waxaad badisaan xusuusashada midka dadka macmacaanka ka gooya, xusuusashadiisa badiya ayuu yidhi salawaatullaahi wasalaamun calayh. yacnii almowt, geerida ayaa loola jeedaa. macmacaanka ayuu dadka ka gooyaa, wuxuu dadka ka bixiyaa guryahoodii ehelkooda, wuxuu geeyaa luxdi iyo god iyo qabri ciriiri ah oo mugdi ah, onus iyo wehelna aan uga horaynin ayuu dadka geeyaa. sidaa darteed ayaa dadka muslimiinta ah waxay ku jiraan khaflo iyo halmaan, waxaana u soo dhowaatay wakhtigii loogu talagalay inay adduunka faaruqaan. ilaahay aayad kale wuxuu ku yidhi subxaanahu wa tacaala, asagoo sakaraadkaa dhibaatada badan xanuunka badan dadka u tilmaamaya, falowlaa idaa balagat alxulquum
waxaad ka warantaan dadow haddii nafsadda la soo duuduubo oo xayaatabaxa qofka uu gaaro oo kalxamaha iyo meesha ugu dambaysa ay marayso falowlaa idaa balagat alxulquum wa antum xiinaidin tanduruun idinkana aad fiirinaysaan buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala qofkaa ixtidaarka ku jira ee sakaraad ka saaran aad fiirinaysaan ayuu ilaahay dhahay ka warrama xaaladiisa iyo xaaladiinaba wa antum xiinaidin tanduruun wanaxnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubsiruun annagaa idinkaga dhow buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala ninkaa xaalkiisa laakiin nooma jeediin malaa'igtii nafta qaadaysaa meesha joogta oo idinkaga dhow qole idinka mid ahi biyay ku taslinayaan qofkii kor uga soo noqonaa indhihiisii ayaa isbeddelaaya babis ayaa lagu boobaa waxyaabo fara badanaa lagu samaynaa qofkiina sakaraad waaye ilaahay wuxuu ugu talagalay maanta inuu xayaatada faaruqiyo ou ka taga adduunka lana geeya barsaq sidaa darteed uu ilaahay dhahay subxaanahu wa tacaala wanaxnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubsiruun laakiin ma noo jeediin walaakin laa tubsiruun falowlaa in kuntum hayra madiiniin haddii aad tihiin kuwa aan la abaalmarinaynin oo qiyaamo aan jirin tarjicuunahaa in kuntum saadiqiin buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala qofkaa xayaata baxayo dhimanaayo nafta ku celiyaba haddii aad run sheegaysiin macnaha waxaa loola jeedaa qofkaa idinka dhimanaya haddaad ruuxda ku celisiin qiyaamo ma jirtee waxaad doontiin sameeya laakiin haddii xayaatada lagu celin waayo diyaargarooba qiyaamaa jiro ilaa hortiisaa la tegaa subxaanahu wa tacaala haddaba qofka sidaa ayuu u sakaraadaa dhibaato fara badan ayuu ku jiraa sakaraadka rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofku inuu jannada galo 70 buurood ayaa ka xigta sakaraadka ayaana ugu sahlan subxaana allah sakaraadka waa buurta ugu fudud buu dhahay sala allahu calayhi wasalam inta kale waa ka sii adag tahay waana ka sii dhibaato badan tahay maca daalika dadkii maanta waxay galeen khaflo waxay galeen halmaan waxay hilmaameen geeridii sidaa darteed ayuu ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu ballan qaaday naf walba oo geerida hilmaanta inuu ilaahay cadaabka ku hilmaamo subxaanahu wa tacaala falyawma nansaakum kamaa nasiitum liqaa'a yawmikum haada buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala maanta waxaan idinku hilmaamaynaa naarta gudaheeda saad maalinteenaan u hilmaanteen oo kale ayaan idinkugu hilmaamaynaa cadaabka idan dadku waa inay aad u xasuustaan geerida cabdullaahi bni cumar wuxuu yidhi nebiga ayaa garabkayga qabtay markaasuu dhahay yaa cabdallah kun fi ddunyaa kaannaka gariib adduunku waxaad ku noqotaa sidii nin musaafir ah oo kale ow caabiri sabiil ama nin wadda gudbaaya oo kale noqo ayuu ii yidhi buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam ninka gariibka ee musaafirka ah oo kale noqo musaafirka aan waddankiisa joogin guryo kuma dhisto rartiisa kuma furta meesha wuxuu og yahay wakhti yar ka bacdi inuu meesha faaruqaayo ee markaa uu ka tegaayo adigana saasoo kala noqo oo geerida u diyaargaroow adduunka musaafir ku noqo ow caabiri sabiil ama nin waddo laami ah gudbaayoo kale waayo laamiga qofku markuu rabo inuu gudbo labada dhinac inuu iska fiiriyo ayuu gudbaa ma dhex fadhiisto saasoo kala noqo ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam haddaad subaxdii gaarta galabtii ha sugin haddaad galabtii gaartana subaxdii ha sugin noloshaada u qaado geeridaada caafimaadkaaga jiradaada u qaado mar walbaa diyaar noqo adigoo diyaara maniyada iyo geerida iyo yaqiinta ha kuu timaado sidaa ayuu nebigu kula dardaarmay sala allahu calayhi wasalam haddaba qof kastaoo muslima dardaarankaa inuu fuliyo ayaa shay lagama maarmaan ah oo loo baahan yahay nin ayaa nebiga u yimid salawaatuullaahi wasalaamuhu calayh markaasuu dhahay rasuulkii allah waan ku jeclahay rasuulku wuxuu yidhi cud nafsaka almowt naftaada waxaad ku tirisaa dadka geerida ah weligaa xayaata ha ugu sheekaynin nafsadaada weligaa waa noolaanaysaa ha isdhihin tuulul amal yareey iyo didiilada yarayso sidaa ayuu nebigu kula dardaarmay sala allahu calayhi wasalam dadku markay adduunka jeclaadaan
oo geerida ay hilmaamaan oy nacaan cadow ayaa lagu sallidaa sida rasuulku uu tilmaamay sala allahu calayh wasalam. waxaa soo degdegaysa buu yidhi an tadaaca alumam ummadaha gaalada ah inay isukiin wacato haddaad muslimiin tihiin, sida xeerada raashinka laga cunaayo saaxiibbahooda iyo dadka cunay isugu wacdaan oo kale ayay gaaladu isku kiin wacan doontaa oo dhinac ay idin kala jiidan doontaan haddaad muslimiin tihiin. asxaabta nebigu waxay ku dhaheen awa min qillatin yaa rasuula allah, yaraan aan yarnahay darteed may maalintaas gaalada saas noo yeelayaan? maya buu dhahay nebiga, bal antum kaiiruun, aad ayaad u fara badan tihiin, laakiin badnaantiinnu faa'iida ma leh oo waxaad noqonaysaan guhaa ka guhaa'i sayl, xumbada wasakhda ee roobka biyaha uu soo qaado oo kale ayaad la mid noqonaysaan. ilaah subxaanahu wa tacaala qalbigiina gaalada qalbigooda ayaa haybadda idinka aad leedihiin laga bixina, qalbigiinana wahni ayuu ilaah ku soo tuura subxaanahu wa tacaala. wama alwahnu yaa rasuula allah bay dhaheen asxaabta, wahnigu muxuu yahay rasuulka ilaahayow? qaala xubu اdunyaa wa karaahiyat اlmowt, waa noloshoo la jeclaado iyo geerida oo la naco ayaa loola jeedaa buu dhahay salawaatu ullaahi wasalaamun calayh. maalintaad geeri nacdaan oo aad jeclaataan nolosha, gaalada ayaa saa is-idin yeeli doonta buu dhahay salawaatuullaahi wasalaamun calayh. asxaabta nebiga waxay ahaayeen salawaatuullaahi wasalaamun calayh kuwa geerida jecel oo xayaatada neceb, sida dadka maanta jooga nolosha ay u jecel yihiin oo geerida ay u necab yihiin. rasuulku wuxuu yidhi salawaatuullaahi wasalaamun calayh, qof walba oo la kulanka ilaahay nacaa, ilaahay la kulankiisa ayuu nacaa subxaanahu wa tacaala. waman axabba liqaa'a allah axabba allah liqaa'ahu, qofkii inuu ilaahay la kulmo jeclaada, inuu dhinto ciyow aakhiro aada jeclaada, ilaahay la kulankiisuu jeclaadaa subxaanahu wa tacaala. xaasaska nebiga mid ka mida ayaa tiri kullunaa nakrahu almowt, rasuulkii allow dhammaanteen geerida waa necabnahay. rasuulku wuxuu yidhi saas ulama jeedi, laakiin waxaan ka wadaa qofka mu'minka ah marka lagu soo xaadiro oo sakaraadkii xayaatabaxa uu gaaro oo naftiisa lasoo duuduubo kalxamaha ay soo gaarto ayaa la tusiyaa wanaagga ilaah agtiisa uu ku leeyahay subxaanahu wa tacaala. waa loogu bishaareeyaa wanaagga ilaah agtiisa uu ku leeyahay. ma jiro shay uu kaga jeclaan badan yahay inuu rabbi la kulmo, ilaah la kulankiisuu jeclaadaa, markaasuu ilaah la kulankiisa asagana jeclaadaa subxaanahu wa tacaala. amaa munaafiqa iyo qofka aan ilaahay aaminsanayn marka lagu soo xaadiro sakaraadka uu gaaro ayaa la tusiyaa dhibaatada qabriga, ciriiriga, mugdiga iyo cadaabka alla agtiisa uu ku leeyahay subxaanahu wa tacaala. ma jira shay uu kaga naceeb badan yahay inuu ilaahay la kulmo subxaanahu wa tacaala. la kulanka alla ayuu nacaa, markaasuu ilaah asagana la kulankiisa nacaa subxaanahu wa tacaala. haddaba laba si ayaa loo kala dhintaa. dadka mu'miniintae ilaah rumeeyey subxaanahu wa tacaala hab nadiif ah oo wanaagsan ayay u dhintaan. kuwa kaafiriinta ah oo rabbi diidayna si silac iyo dhibaato badan ayuu ilaah nafta uga qaadaa subxaanahu wa tacaala. waannaasicaati garq, waxaa loola jeedaa malaa'igta naasicaadka ah ee nafsadda gaalada siibtaa. qarqiga waxaa loola jeedaa si dhibaato badan oo maashood ah ay xayaatada u siibtaa. waannaasicaati garban waannaashitaati nashtaa, waa malaa'igta mu'miniinta ka qaada xayaatada si nashti ah oo fudud oo jilicsan buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. kaafirka waxaa lagu miisaalaa musbaar, dhagax ee meel bir ah ku surnaa ama meel bir ah ku surnaa oo laga siibaayo oo kale ay xayaatada looga qaadaa. amaa naashitaadka waxaa lagu miisaalaa hal tin cajiin ku dhegtay sida looga soo qaado oo kale, saas ayaa mu'miniinta ayagana xayaatada looga bixiyaa. maca daalika buu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam, qof walbaa ha ogaado xayaata baxaas inuu markaas soo maraayo. nebiga xadiis ayuu ku yidhi ina almu'min yamuutu bicaraqin jabiin, qofka mu'minkaa waa dhintaa asagoo dhafoorkiisa uu dhididaayo ayuu dhahay salawaatuullaahi wasalaamun calayh. mu'minka wuxuu la dhintaa dhafoor dhidid. qolo muxadisiinta ka mid ah ayaa waxay yidhaahdeen waxaa loola jeedaa xayaato baxa iyo sakaraadka ayaa waxoogaa lagu adkeeyaa qofka mu'minka ah. sababtu waxay tahay qaladaadka iyo gafafkii yaryarkee ka dhacay ayaa looga nadiifiyaa si qabriga loo geeyo asagoo nadiif ah oo wax dembiya aan lahaynna beri ilaahay uu la kulmo subxaanahu wa tacaala. amaa munaafiqa waa loo celiyaa
waa loo kaydiyaa ilaa dembigiisa asagoo buuxa ilaah uu la hortago subxaanahu wa tacaala. mu'minka dhafoordhiid ayuu la dhintaa. muxadisiinta gobol waxay yidhaahdeen saa loolama jeedee waxaa laga wadaa asagoo dadaalaayo, qiyaamuleelka ku dadaalaayo, soonka ku dadaalaayo, cibaadaadka ku dadaalaayo, oo xalaasha ku dadaalaayo ayuu dhintaa ayaa loola jeedaa. qofka mu'minkaa asagoo dhafoorkiisu dhididaayo oo dadaalaayo, xalaasha ku dadaalaayo, xaaraanta ka ordaaya, kelimada tawxiidka ku dadaalaayo, sidaa ayuu markaa ku dhintaa. haddaba labada si ayaan kala qaadaynaa, qof kaafir oo dhimanaayo iyo qof mu'min ah oo dhimanaayo, habkay u kala dhintaan iyo sida ilaah uu u tilmaamay subxaanahu wa tacaala. waxaan ku hormaraynaa qofka kaafirkaa dhimashadiisa, ama ilaah ninka diiday subxaanahu wa tacaala. qofka noocaasee ilaahay aamini waayey, ama gabar ilaahay diinkiisii diiday, xijaabkii islaamka qaadaa lagu kari waayey, salaadii ilaahay dukaan lagu kari waayey, xijaabka ilaah qaada marka la yidhaahday kugu jawaabaysaa kuleel ayaan u dhimanaa, marka ilaahay diinkiisa raac la yidhaahday kugu jawaabaysaa casaga lama socda diinka, marka aad dhahdo war walaalay ilaahay ka cabso oo waxaan jooji, waxay kugu jawaabaysaa hadalla aan loo baahnayn. xaaladdu haddii sidaa la gaadho ayuu ilaah ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala habka iyo qaybtay markaa u dhimanayso. dadkaas ayaan ka hadlaynaa dumarkii xijaabka ka tegey oo ilaahay diinkiisa lagu kari waayey, oo mar walba xaaraan maahane xalaashii lagu kari waayey, baatil maahane shay xaqa la diiday. dadkaa habkay u dhimanayaan. qof walbaa sakaraadkiisii wakhtigiisii markii la gaadho meeshii xayaatada looga qaadi lahaa ayuu ku dhacaa. meeshaa marka uu ku dhaco ehelkiisii waa u soo gurmanayaan. waa tii hadda aan tilmaannay ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaala kallaa idaa balaqat itaraaqiya, naftu markay kalxamaha soo gaarto waqiila maraaq, yaa tufaayaa la leeyahay. ardadii dugsiga dhiganaysaa loo soo wacaa, macallimiintii dugsigaa loo soo wacaa. intaa inay wax anfacda tuftiisa ayaa la rabaa, laakiin sakaraad haddii mar la gaadho wax anfacayaa ma jiro. tabiibaan wax taraynin, daabaan wax anfacaynin, wax anfacayaa ma jiro. rasuulkuna wuxuu yidhi salawaatuullaahi wasalaamun calayh, geedka xabatu sawdaha la yidhaahdo shifaa'un, wuxuu daawo u yahay cudur kasto ila asaam, yacni almowt, ilaa geeri maahane, dhimasho maahane, waxa kale oo dhan wuxuu u noqonaa buu dhahay nebiga daawo. sidaa darteed dadku waa kala ordaayaan. qofkan sakaraad ayuu joogaa, xayaato bax ayuu ku jiraa, indhihiisii ayaa isbeddelay, jasadkiisii ayaa kala qalalay. dadku waa u soo kala ordaayaan. kii tufta fiicnaa aa loo wacaa, daawoba daawadii ka qiimo badanaa loo samaynaa, dadkii wax fiirinaya kutubaha fiirinayaa loo tegaa, waxaasoo dhanaa loo samaynaa. asagiina waa sakaraad. waqiila maraaq, biyaa lagu taslinaa, waa loo babbinaa, xayaatadii lugaha laga soo bixinaa, jilbahaa loo keenaa, jilbaha laga qaadaa, waxaa loo keenaa meesha marada laga xirto, waa la qaadaa, kalxamaha iyo meesha ugu dambaysaa la geynaa. qofkan munaafiqa ah oo hadda ilaahay diinkiisa diiday, waxaa dhici karta in tawxiidka loo laqino oo la yidhaahda laa ilaaha ila allah dheh, asagana uu awoodi waayo. sababtu waxay tahay laa ilaaha ila allah waxaa dhihi kara qofkii aaminsanaa oo diinka ilaahay raacaya subxaanahu wa tacaala. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إلهي كلمة ثابتة سوغان توحيد كان لولا جيداي وكسوغا ضدك مؤمنين آخرة أدون وحالو لجيدا أدون كان عند السكرات آخرنا مركا قبرك اللي ويديو هدو وانشيغ دوناي أساقنا ولغسوغا بوضاي إلى سبحانه وتعالى. laakiin qofkan munaafiqa ah ee ilaahay diinkiisii diiday, gabadhan faajiradoo ilaahay diinkiisii lagu kari waayey, laa ilaaha ila allah dheh haddii la yidhaahdo waxaa laga yaabaa inaysan markaa dhihin, ay awoodi waayaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa gefinaa, jidka toosanaa la gefinaa. sababtu waxay tahay ayagaa ka caado dhigtay wixii xumaa. qofka adduunka keligiis raacaa xaaladiisu sidaa ay tahay. maca daalika waxaa la soo wariyaa dad fara badan oo sakaraad ahaa, la yidhi laa ilaaha ila allah dheh, sidii nin dhimanayey ee la yidhi laa ilaaha ila allah dheh. sakaraadkii ugu dambeeyuu ku jiray, markaasuu dhahay geelaygii meeqa waaye, ilmahaygii yaan ku ogahay,
laa ilaaha ila allah dheh afkiisa waxaa laga waayey kelimad aan ahayn ilmahaygayaan ku ogahay iyo geelaygii meeqa waaye intaasaa laga kari waayey laa ilaaha ila allah dheha la yidhi waa su'ul khaatima ilaahayaa khaatimada gefiyey subxaanahu wa tacaala khaatimadiisaa la xumeeyey qofku markuu ilaahay diinkiisa ku dadaali waayo ilaahay khaatimaduu ka xumeeyaa subxaanahu wa tacaala islaan dhimanaysaa la yidhi laa ilaaha ila allah dheh tubaakada ha laysoo dhiiba ayay ku soo warcelisay waxaasoo dhanba shay xaqiiqaa oo dhacay waaye dadka mu'miniintow dadaala xusuusnaadana geerida sida rasuulkuu noola dardaarmay sala allahu calayhi wasalam haddii geelaygii aaway aad tiri geelaagu maalinta aqir wuxuu kuu anfacayaa ma jiro xoolahaagu waxay kuu anfacayaan ma jiraan ilmahaagu waxay kuu anfacayaan ma jiro man kaana aakhiru kalaamuhu laa ilaaha ila allah dakhala aljanna qof walbo warkiisa ugu dambeeya laa ilaaha ila allah uu noqda jannaduu gelaa buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam ay ku xasuusiyeen adigana ilaah uu ku gedsiiyey subxaanahu wa tacaala haddaba dhibaato aad iyo aad u weyn waaye malaa'igta sakaraadka ah malaa'igta nafta gaalada qaadaa u imaanayso ilaah wuxuu yidhi fakayfa idaa tawafathum almalaa'ikatu yadribuuna wujuuhahum waadbaaruhum say xaaladoodu noqonaysaa waa kuwa hadda aan ka hadlayno markay dhimanayaan malaa'igtuna ay soo gelayso ay horay iyo gadaal ka tumaysa buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala walahum maqaamicun min xadiid guruumo bir ka samaysan ayay wataan meeqa sakaraad ayaad aragtoo sariirta aan lagu celin karin hor uga soo boodaayo dadku ay ku celinayaan fakayfa idaa tawafathum almalaa'ika yadribuuna wujuuhahum waadbaaruhum horay iyo gadaalay ka garaacayaan buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala weliba inuu dhinto ma rabo ninka munaafiqa ah ama kaafirkee diinka aan raacsanayn ilaahay muxuu dhahay subxaanahu wa tacaala asagoo arrintaa ka hadlaayey xaaladda dadka daalimiinta ah markay dhimanayaan say xaaladoodu noqonaysaa walow tara wakhtiga xaaladdan say noqonaysaa wakhtiga oo malaa'igtu ay nafta ka qaadayso oo mar allaala markay malaa'igtu u timaado baasiduu aydiyahum gacmahooday u soo fidinayaan oo ay leeyihiin akhrijuu anfusakum naftiina soo bixiya alyawma tujsawna cadaaba alhuun maanta waxaa laydinku abaalmarinaa cadaabkan ugu xun buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala akhrijuu anfusakum markay malaa'igtu leeyihiin waxaad ka fahmaysaa qofkan inuu dhinta ma rabiyo xayaatadiiu celina adeegiina waa soo taagayaan gacmahooda waxay rabaan inay xoog uga qaadaan buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala akhrijuu anfusakum alyawma tujsawna cadaaba alhuun maanta waxaa laydinku abaalmarinaa cadaabkan ugu xun oo ugu dulisan buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala cadaabkan ugu xun ayaa laydinku abaalmarinaa ee nafsadiina keena ha celinina saasaa loo leeyahay buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala maalinta xaaladdaa la gaara waa maalin aad iyo aad u cajiib badan qofkan dadka daalimiinta ah sidaas ayay u dhintaan buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala walow tara id الظaalimuuna fii gamaraati اlmowt waxaad iiga warantaan wakhtiga dadka daalimiinta ah ay ku jiraan gamaraatu اlmowt macnaha sakaraadka meydka ay ku jiraan waalmalaa'ikatu baasituu aydiihim malaa'igtana ay gacmahooda u soo fidinayaan oo ay leeyihiin akhrijuu anfusakum naftiina soo bixiya alyawma tujsawna cadaaba alhuuni bimaa kuntum taquuluuna cala allah keena nafsadiina ha celinina adduunkan waa ka tegaysiin ee keena ayaa loo dhahaa buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala maanta waxaa laydinku abaalmarinaa cadaabkan ugu dullisan waana bimaa kuntum taquuluuna cala allahi hayra alxaqi waa ilaahay dushiisa xaqla'aantii aad ku dhihi jirteen iyo wa kuntum can aayaatihi tastakbiruun isweynaysiiskii aad aayadaha ilaah iska weynaysiinayseen mar walba oo laydin wacdiyo diin laydiin sheego xaq laydiin sheego waxaad ahaydeen kuwa ka orda oo diida idan soo bixiya nafsadiina naftaa sidaa looga qaadayaa aayad kale wuxuu ku dhahay ilaah ina aladiina tawaffaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim kuwa daalimiintaa markay malaa'igtu oofsanayso qaaluu fiima kuntum maxaad ahaan jirteen ayaa la leeyahay qaaluu kunnaa mustadcafiina fi اlardi
waxaan ahayn bay leeyihiin kuwo arlada lagu daciifsado. ilaahay diinkiisa ayaan ku caabudi weynay, waana loo diiday. xaqii inaan raacnaana loo diiday. malaa'igtu waxay leeyihiin alam taku ardullaahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha, arlada ilaah waasac ma ahayno maxaad ugu haajiri weyseen? fa ulaa'ika ma'waahum jahannamu wasaa'ad masiir, kuwa hoyadkooda jahannamo waaya buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. suu u sakaraadaya qofkii daalimkaa xayaatadaa ka baxayso. xayaatada marka ay baxaysa nebigu wuxuu yidhi ruuxdu markay dhimanaysa ittabacahu albasar, indhaha ayaa raacaya. weli wuxuu dadka amri jiray qofka sakaraadkaa in indhaha loo celiyo oo indhaha loo laabo. ruuxdu markay baxaysa buu dhahay nebiga ittabacahu albasar, indhaha kor ayay u raacayaan. qofkaa nafsaddiisa markay baxdo waxaa la geynaa xayaatadii ama ay aadaysaa samada. uqliqad duunaha, intaysan gaarin ayaa laga soo xiranaa waana la soo celinaa. ilaahay ayaa yidhi kallaa inna kitaaba alfujaari la fii sijiin wamaa adraaka maa sijiin kitaabun marquum. dadka daalimiinta kitaabkooda sijiin ayaa loo celinaa, waa meel xun oo hoosaysa oo 7 arla ugu hoosaysa, meeshaasaa loo celinaa. idan waxa fiican oo tayibka ayaa ilaahay u koro aada, amaa waxa kale waa laga soo celinaa. qofkii markii xayaatadii ay saas uga baxday oo ehelkii meesha ay joogaan, waxay gudagalaan in la nadiifiyo oo la dhaqo oo la duugo. waayo qofku markuu dhinto qof wax ku falayaa ma jiro. magaciisii ayaa baaba'ay, meydka ayaa lagu leeyahay. markaad nooleed dadku waa ku jeclaayeen, markaad dhimato dadku waa ku nacayaan. xoolahaaga, sariirtaada lagugu dhaqi maayo, waxaagoo dhanba waxay gelayaan dhaxal. qofka mu'minkow rabbigaa ka cabso subxaanahu wa tacaala, sahay fiican samayso, ilaahay diinkiisa ku dadaal. cali bni abi taalib ayaa qubuuraha tegey baa la yidhi, markaasuu la hadlay dadka qabriga ku jiray. wuxuu yidhi yaa ahlulqubuur, dadkan qubuurta ku jirow, xaaladdiinaan idinkaga warramaa ee dhegaysta. xoolihii aad ka soo dhimateen qad qusim, waa la qaybiyey. naagihii aad ka soo dhimateen qad zawaj, waa la guursaday. ilmihii aad ka soo dhimateen waa barbaareen oo waa koreen. xaaladdiina adduunka waa sidaa ee idinka xaaladdiinna nooga warrama. faqushiya, cali waa suuxay radia allaahu tacaala canhu, waa soo kacay, hadalkii ayuu ugu celiyey. waa ooyey radia allaahu tacaala canhu. wuxuu yidhi wallaahi ahlu qubuur hadday ii soo jawaabi lahaayeen waxay ii dhihi lahaayeen watasawaduu fa inna khayra azaadi attaqwaa. ma dhihi lahayn meel wax dhigta, ma dhihi lahayn adduunka ku sii socda, ma dhihi lahayn nafsaddiina u raaxeeya, ee waxayna dhihi lahaayeen sahay soo qaata. sahay la qaata taqwada iyo cabsida ilaah ayaa u weyn subxaanahu wa tacaala, una khayr badane. wallaahi hadday ii soo jawaabi lahaayeen waxay dhihi lahaayeen buu yidhi watasawaduu fa inna khayra azaadi attaqwaa. sahay soo qaata oo cabsi ilaahay ah subxaanahu wa tacaala. haddaba qofka haddii ilaah taqwadiisa laga waayo, xaaladdiisaa sidaas ahee daalimkan dhintay, dadku waxay gudagalayaan in markaa la duugo. gabadhii dahabkeedii waa laga furaa, saacaddii kuu xirneedaa lagaa furaa, dharkaagii qiimaha badnaa ayaa lagaa reebaa. waxaa lagugu karfanaa 2 maro ama 3 go oo cadcad ah ama hal keliya, intaas ayaa lagu siinaa. sidaa darteed ayaa mufasiriinta markii ay fasiraayeen aayaddii ilaah subxaanahu wa tacaala ee uu yidhi walaa tansa nasiibaka min addunya, ha iloobin nasiibka adduunka, waxaa loola jeedaa karfantaada iyo dhulka lagugu duugaayo, taa ha hilmaamin. inta kalena taqwada ilaah ku dadaal subxaanahu wa tacaala. sidaa ayaa loola jeedaa ayay markaa yidhaahdeen. haddaba qofka muslimkaa xayaata baxaas iyo dhibaatadaasaa sugaysee waa inuu diyaargaro